هست وقاعد شرا الله ونحرست محمد نور قري سليخاي أرجعه نفتوس مرسيس صدق عليك وقطعي هيه هكا قد سلام قبل باجرتي وقت العير حسب وحبينا هون صور بدبي وانقرت ما شفته هيه شيء وليبا ميل بوصلك كوهيا وحنا كينا يا درeenka qofka gartay ragadu soo manihin kalgacal labada ka dhaxeeya ayaa aad dadka imanaya kaas uu ka hadlinaya uu ka hadlinaya oo raga hablo raga duur baa laayay gartay wala ka waan gartay gartay raga duur baa laayay haye feeb ku sheegi maayo inta aan qof la fadhiyo oo ay arkay ama murugaysan haye ma malaynaysa waa nin gabar jecel oo laakiin gabadhii u taag waayo xoolihii wuxuu ku guursan lahaa haye yaa waay oo meesha ka calaacadayo iska murugoonayo oo madluuma haye ka udhay inagu berigii hore xoolo dhaqateedaynu ahayno gabadha la doono waa la dooni jiro reerkooda loo tagi jiro waa la weydiisan jiro gabaati baa la bixin jiro marka dambe yarid baa la bixin jiro saasay ku dhamaan jirtay dag halkaas sheekadu ku ekad marka magaalo galkii wuxuu keenay rogmasho rogmasho waa keenayo albaabkii jacaylka xidhnaa ee dee maaragtay markii laga yimid miyiga ee aan jacayl ba jirin waxa la jeclaa geela la jeclaa gartay kowde dadka yani waxay ahaayeen ummad ka fog wixii wax yeelaya marka adeer magaalgalkii wuxuu keenay jacayl waan gartay ilaa isarko horta marka ugu horeysa nasra fakalaam baa la yidhiyo inaad marka hore inta adigoo halkaa maraya mid ka horeysa qaac baad ku siinaysaa horta isha qaac ku siinaysaa waan gartay qalbigana waxba ku dhacaya tabaadana marka dib hadal baa furmaya labadii qof waa gartay xagga u dhigiya xagga u dhigiya xagga u dhigo waa la iska sheekaysanaya mararka qaar kood ee sheekadaas ku dhamaataayo waa la iswaafaqi waaya mararka qaar koodna guur baaba yimaado labada qof haday is cajabiyaan markay muddo sheekaystaan ee qof wala qofka kala deemaysaabee bal hada eegayo wuxuu yahay waan gartay taasi aad jirtay kowdee jacaylka waqtigaasi waa markii uu magaalo galkii miyigu ma jirin jacaylka waan gartay gabadhaas waa qolo ma reer bilba ka dhalatay konton geela 80 geela خلاص waa intaas ku dhamay waan gartay kowdee marka albaabkii hunguriga waqtiga xidhnaa halkan laba hunguri baa ku yaala adeer mid waa ka hawada midna waa ka hunguriga waan gartay magaalo galkii wuxuu keenay in albaabkii hungurigu ku furmo ummadda aad iyo aad wala wax runtii markaas si cajiiba ee Suleekh marka gabadh bay ahayd sabab gaari Suleekh la yiraahdo ana bixiyo Suleekh waan gartay in maxamed nuur gadiig la yiraahdo yaa qaadi jiray haye kulbaad wada deganay haye adiga iyo saddex yar oo kale maxamed cali sayraani iyo salaam al-xamaadi iyo maxamed ibraahim la yiraahdo yaa guriga wada deganay waan gartay gabadhaas waxay soo fadhidaa meel halkaas oo kale ay kursi sibira oo darbi haysta ee soo fadhiisata waxaan u maray markaas soo mid walba saacid ku arkayso shiishkii baa inta la qabtay haye dadka ku kale iska yeegaya halkaas soo fadhidaa dabada kuma jirto oo jacayl ma hayo ee waxa yaabad tahay waxa meesha ka jira kowde shabaq meesha ku jiray baa lahayd meel daldalo halkaas aan ka tooganaa kowde intii markii dambe waxaan war intan sidaas uu salcimayna ama intaan wax u sheegno ama inta meeshaas kaga tiro waa ku gumobaynaa nin la yiraahdo Saciid Kucmadi la yiraahdo ayaa waxaan haysanaa warbal mid inaga soo dhexsaaray inta guursado halka intaas ay noo jirtaa darbigaas oo kale mid aan iska dhexsaar waan gartay وأنا ومحمد سعد وأنا أسير كلينا وسلام الحمادي وسعيد كعمدي وحنا أفرشان محمد إبراهيم اللي يرجع هاي آخر كينتي سلخ اللي يرجع مركي ليس مغفصدي هي وحلوته إنك يقصدي هاي سما ذكر تبى ترى وترهستني كتبتني هاي يا مركز سميس السلخ يا رجال السلخ هذا قبل نفسه وصل وحيقوم مقالة مالك نفسه وصل بس كوي لكن نفسي أيام صبرين يا وي وانقطع هكذا سلامته وحيقوم مقالة مالين روب ده أيوة iga sheekeynayay oo kale in gabadha de gurigeedii ay rag markaas daadkii ka mooseen kiinina uu daadku soo galay waxaan aragnay daad roobaad ay nacasnimada aan kaaga sheekeeyay nacasnimada jacayl bay ahayd kowda gabadhaas la khalay guri adnala guri baan degnay ina guri waa isku xignaa hay baa roobaba
ooda soo qaaday allah markaasay cirka isku shareertay markaasaa waxaa gurigayagii oo daad qaaday ayaan waa aniga iyo seeraan iyo seeraan xamaadi iyo cabdilaahi laafti ragayagii gurigiina taanu dhulaynaa kayagiina daad baa la tegey waxaad ki ilaahay kayagiina daad baa qaaday inaa lilaahi waa ina markii dambe markaasaa gurigayagii daadkii galay oo buuxiyey kii kalaad ka shaqaynaysaa allahu akbar anaa waxaanu inan baanu u shaqaynaynaayo duulku waa marwar waxaa leedahay waa jin dumarku waa gartay kowdhi markaa sidaasaan u safarnahayo mid walba intuu shiishka ku hayo intu waa ilaa derbiga kasa mid walba ka afarta kale iska eegayaanaya toban isaguna foonaya hadda kowdhi sheekadii way socotay aakhri waxaa leedahay qof ha loo daayo ilaa afar guursan mayse horta waxaa halkaasay soo fadhiisan jirtay iyaduna horta halkaasay ka daawan jirtay waan gartay waxaan nidhi war afarteenan nin ha loo daayo gabadha gursada markaas hadda nin wala iskiijinayaa wuxuu leeyahay dee adiga waadaad noqotid markay dhinacna u bixi weydey ayaan war arrintoo dhan baa ka kacayno ka dhigno gartay kowdhi gabadhii sulaaqa nin kaloo markaa joogada siciid kucmadi layahay siciid jaamac xuseen ayaan u hibeynay gabadhii isagii baa gabadhii guursaday caruur bay u leedahay waaweyn maasha allah waa ka hadal taasi waa siday markaa heesta ku timid heestaasi Suleekha